وكي بلشدة متكي وذي لها ولا لها وانا قاهنتي لي وكا وطني وطنكي سمو وسني بري فرحة الله قلي وكا وطني bilaabaan doonaa aayadaha qur-aanka kariimka oo inoo akhriyi doono sheekh cabdiraxmaan xukun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش inagoo aan fiirinaynin danaha gaarka aynu kala leenahay oo fiirinayna danta guud ee aynu wada leenahay oo ah inay Somaliland ka mid noqoto international community-ga ama qaramada midoobay oo ay noqoto waddan la aqoonsan yahay. taasina waxay ku imanaysaa inaynu ka ilaalino cid kasta oo sharciga jebinaysa oo fadqalado ku wada sharciga aynu dhisanay. adduunyada wuxuu ku kala socdaa oo sharciguna wuxuu ka bilaabmaa wixii laba qof ay isku afkarteen inay wax ku qabsan. iminkana waxaan u yeedhayaa gudoomiyaha baabinka xagga garabka haweenka Zainab Warsame. وسولو وني يفوت رمضان وفردا ما شاء الله سولو هذا مقالة ديني ما شاء الله حلو هنوصل بيجتين ما ربتين وتايدا أو graduation يدو يشرتو حلو ما نوصل غضون إن شاء الله إذا كانوا سولو ويني يعني أنت بحربينا واحد بلا هذا لكن ده يوصل كرسيني يا كل مية وحلا كل مية واحد وده جوج ماشي واحد كسر واحد يسمع معها هدانا بقلي دور شو الغوادر اتصل بلي. السلام عليكم بسم الله لما أنت ولد السلام يا مرت شاف تعال تلسبوت مرقيها وين با سخاصة واحد مسؤول وين مسلام يا لبضن إنه يمد ملاحظا كسر طبعا هذه وطنكي حتى لا يدخلي عطاني حلا نسول وهذا حسب جيني تذكيني تتو كوين ما نودي قبل أنا هذا كواجا كمان ما hawlaha aynu ku jeednaa run ahaantii degdega noogu wacan laakiin waa la wada joogaa insha Allah wixii adduunyada gudoomiyaha garabka haweenka khadraan u yeedhayaa kusoo doontay waad aragtaan kulmihiisu wax wado khaasatan madaxweynuhu wax wado waad aragtaan shacabka Somaliland inaana ka yihiin waxaan ka socda wadanka hadda إن شاء الله كبر الجنة من نحلة هواك هو لفظة بالشدة وحمان تلقوا عيارة أنا وهنا أنا كل ما أكون لقوا عيارة دون كلقوا عيارة يا ثم أركوا إنا كعامل نحن حيتان سي مستقبل أبوه هلا عبروه ده يجي نفتو ده وده كذا نقبض بهديا اللي يرى هو أبحي وين ودك السئلة شغل اللي يرى وين يباركتي نحن حيتان oy dadkan waa weliba iska tegayaan waa dhalinyarada waxa maanta mustaqbalkooda lagu ciyaaraya doorashaduna waxaan leenahay waa muqadas in la qabto dastuurka sheegaya dastuurka cadeynaya in laga leexdo ma aha inta tan kaga gudbo waxaan u yeedhayaa inuu isna kelmadiisa yiraahdo Sultan Abdiwahaab عمر تريد ونرد شوقة. وحلا إذا هذا صدق خيره ماشى قبصة. إنه قتالو اللي كان قدومه ديمقراطية بينسويسنا. إن ديمقراطية ده ينسويسنا إنه لي إنه راعي النظام كذا لمرة. أيه بتقول أحسن مرة. وحنا كي ما عنده يتو أضيال ملك الشرايع والدولة ده يصور رصي يدد فردان الدولة تصور رصي. الله بدي حسب الله قد يجي قبيلين. والقبيل منهن حسبيه النظام ديمقراطي بين قادني نظام كامل كيسي هلا مريو شروع الوضع كوت هلا مراد دورشين حل جدي هلا لو قطع waxa inoo haray waxa weeye 6 bilood gaar ahaan madaxweynaha oo aan habaroodaynanahay waxaan leeyahay madaxweyne wax badan hadii halkaad qabsato lagu gooyay maanta lagu gooy maayee madaxweyne maanta doorashada qabo in badan Somaliland bartaad ku dhigto waxa lahayd waa muuse u gooye
maanta si walow lagu gooyay doorashada qabanaya doorashada qabo waxaana aan dadka shacabka u sheegaya war wax qabiil la yidhaaho is hayaa ma jiro reera ma nihin isku wada reer baynu nahay giddigeedba gogol baynu ku wada fadhinaa ninka doonaya inuu waddankeena inaga dumiyaa waynoo cadow inagoo dhan nin quraatana somaliland ka dumi mayso meherad quriga dumi mayso somaliland waa wax dhammaanteen naga wada dumaya anigayga halkaa fadhiya ee maanta halkaa idila joogo haddii aqalkayga jeegada laga qaatay miyaan iga dumin somaliland qof aanay somaliland ka dumin ma jirto aynu meel uga soo wada jeedsano gaar ahaan waxaan halkan uga hambalyeynayaa suldaan xasan oo runtii isagu roolkii suldaannimo qaatay si wanaagsanna madaxweynaha ula hadlay madaxweyne waxaa ku leeyahay suldaankaaga maqal oo odayaashaada maqal waxaa kaloo halkan ka hambalyeynayaa odayaasha kale ee ka yimi Burco ee suldaan xasan hogaami suldaan maxamuud ee guuleed hogaaminayo sulaadiinta galbeed ka timi dhowal hogaaminayo suldaan ismaaciil oo guurtada ka socdo isla odayaasha guurtada hogaaminaya rag qiimo la weeye madaxweyne raggaa maqal maanta 80 baa jirtaa khaatimo xumo somaliland ha kaga tegin taariikh baad u baahantay taariikh wanaagsan madaxweyne kaga tag bilayskana waxaan leeyahay oo weliba jaranka bilayska leeyahay dabagale si fiican baad u shaqaynaysaa berri hadduu cabdiraxmaan qabsadana adigu kuugu horreysiinayaa shaqaalaha ugu horeeya si fiican u shaqeeyo ha u qaadan inaad u shaqaynaysa madaxweynehe dalkaad bilaysutood xidigaha u sidataa baa leeyahay dabagalana ragga kale bilayskaana waxaan leeyahay war wixii qalad ha u dul qaadanina marka hortiina hooyooyinka beerka lagaga laadayo bilaysnimo maaha taasiye waa burcadnimo iminkaan idii sheegaya maaha bilaysnimo bilaysku waa saaxiibka dadweynaha waa walaalaha dadweynaha waa difaacaha dalka hooyooyinka inuu haraatiyo maaha bilaysku taa ogaada bilaysow oo ninka qaldanaydi ku dhex jira iska qabta waan idin ognay duruufahaad ku sugantiin xaaladaad ku sugantiin waa idin ognay dalka waxaad u soo martay baan idin ognay abaal baad nagu leedahay haddaad bilayska tihiin shacabkiina ilaashado shacabkiina idinku ilaaliya intaasaan iskaga tegaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iminkana waxaan kusoo dhaweynayaa khadar macalin qaasin inuu dhowr kelmadood leedahay muuqataa inaad yaanay kelmadiisii aad bare lagu yidhi marka hooska tuurkaa nin ragaa xilmaamee naxali huursan baa tahay yaani naanaystaasi kuu bixin waad ku tala gasheen doorashadaa qabatoo laakiin hebelna ku xumeen baad u bedesheeyey ha bedelina sidii aad ugu tala gashay markii hore u qabo yaani taariikhda ku gelin intaasaan abtigii odhanayaa muuse xisbiyada mucaaradka waxaan leeyahay war ballankeenu waa mudaharaadkuna inta badan wuxuu isu bedelaa rabshad iyo maxaan ku dhaday fawda dad baa laynagu soo dhex darsanayaa fawdo inagu abuura meel kasta oo ayd mudaharaad ka dhigaysaan oo aydun slogans ku soo qaadataan iyo maxaan ku dhaday iyo gacmo taaga no shoot aydun soo qaadataan waxa aydun abaabulka ka gashaan dhalinyaro ilaalisa qof kasta oo rabshad inagu wada oo doonaya inuu magaranaysaay ama laynagu soo darsaday ama dee nin iskaba tuugo oo doonaya inuu dukaan ku jabsado wax badan baa jira nabadgelyada intaydaan bilaabin mudaharaadka dad u sameeya dhalinyaro u sameeya ilaalisa oo ninkii fartaaga bay naga qabtaa hasugina askartaasugin intaasaan baa ugu tirayaa madaxda maxaan ku dhahday mucaaradka xisbiyada mucaaradka waxaan kelmad baaqa u dirayaa inamada hanka siyaasadeed leh ee doonaya inay dalkan hogaamiyaan ay ururada furtaan sharcigeenu sida looyarada iyo nimanka gareeqaanadii ay caddeeyeen cid kastaana ay og tahay 10 sannadoodba inaynu mar furano ayaa laynoogu talagalay 6 bilood ka horna inaynu furno ayaa laynoogu talagalay sidii baanay u socotaa
bay u socotaa xisbiyada furta ururada furta xisbiya usoo tartama laakiin taymkeeda ha ku duminina dalkeenna waxaan idin cuntamino hungurigiina ka weynaanaya 6 bilood gudaheedanu ayaan ururadii kusugnaa xisbiya ku samaynayo 3 xisbiya jiray ku baabiinaynayo aynu ugu tartamaynaa madaxweyne idin cuntami maysee haddaad dalkan dan iyo muraad ka leedihiin oo ay idinka dhab tahay hogaaminta ay idinku baaqaysaan oo lahajecla idinkaga jirto aragan waa ku raacina nimankaa idiin soo jeedinaya maxaan ku dhahaa ururada ku furo ku jabiya wadaniyo iyo maxaan ku dhahaa iyo ku jabiya waxaana ka yeeletaasna haddaad dan iyo muraad ka leedihiin oo ay hankaa siyaasadeed ugu jirto run aad doonaysaan in hoggadinu hogaamisaan lahajeclada ka taliyo waktigeeda suga 5 sano usoo diyaargarooba iyo xilliga ay doorashadii usoo gaadho laakiin tana hunguraynina 3 xisbiyo legitimate jooga oo doorashadan leh oo ku tartamaye aradan waxay naga duwanina dalka nimankaan saysan odhanay aad baa leyn aada u mahadsan calena kusoo dhaweeyo rashiid caraale ka mid a odayaasha reer siyaaran hadalkan aynu soo yaro koobna insha allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدني مروي رجي دمر ولدي ولال دليل وايل طلي حجر حسبية قرابه معارضي محافظ دولي ديجان مولادين مهاجر لمانتي لا بردي وذا السلام يا مركور رجال سياتل وكهر رئيسه وافتكر إنه يبغيه إن بدل ما نيو ودير الكلام أنا بردي السلام يا قلبي قاعد السلام يا مركور وفود وانسون بيني وسيرة يقدميه إنه هو رئيسنا هكذا فردي عيدروس gudoomiye kale ka soo reeyay geerisna halka fadhiya madaxda xisbiga muhiimka ah iyo odayaashii hablaha dhamaantiin aad baarday wada salaamay laba kalmadood baan ugu leeyahay labada kalmadood waa fariin midwaadan idin wadaagayo oo ku saabsan waxa badan baa naga lumay wadankeena waxa farbadad wadana ka halaabeen xataa kalmadihi shuruucda iyo qawaaniintii habsocodkeena dawladnimo halaabay waxa farbadad baa ka mid ah xataa naga halaabay waxaa maqasheen wax badan iyadoo la leeyahay wadankeena waxaa ka jira khilaaf siyaasadeed macaaridka laftiisu way yidhaahdaan khilaaf siyaasadeed baa jira kuwa ururada furanaya way yidhaahdaan siyaasiyiin soomaaliyiintu way yidhaahdaan cid walba way tadaa dowladduna way tadaa khilaaf siyaasadeed baa wadankeena khilaaf siyaasadeed kama jiro khilaafka siyaasiga waxa weeyaan marka dadku ay wax isku hayaan jihada loo socdo qol haddii tiro diin baynu raacaynaa qol haddii tiro dimuqraadiya baynu raacnaa tiro wax kalenu raacayna taasa khilaaf siyaasadeed wadankeena waxaa ka jirta xilgudasho la-aan baa ka jirta doorashada in la qabtaa waa xil waa shaqo oo wax inoo taala 97% populationkeena ayaa ogolaaday in doorasho dalkeena 5 sanadood mar laga qabto madaxweyne waa qaynuun cid baana fulisa ciddii fulin lahayd baa shaqadii diiday marka xilgudashalaan baa sababta khilaaf siyaasadeed ma aysan cidda ay u baahantay in lala waaniyo ama wax lala soo ego ama dee haddii shaqada la qabo waayo abaalkeeda la mariyo ee shaqadaani waa xukuumadda waana madaxweyne inta hal looga wado khilaaf siyaasadeed dadkeena ma yeela dadka jaayo wada socdaan taas waa mid fariinta kale halkan aan ka diriyay suldaanka horta aad u taataabtay alxamdulilah khayr badan siiyey waa arrinta booliska boolisku waxay aaminsan yihiin inay u shaqeeyaan xukuumadda joogta inay u shaqeeyaan bay aaminsan yihiin boolisku waxay u shaqeeyaan ummadda booliska fariin baa faray ilaa dablahooda ilaa generaalkooda kelmad baan farayaayo shaqada ay hayaan personal feelingka iyo professionalkooda inay iskaga qaldamaan maaha booliskeena waxaa iskaga qaldan professionally waxay shaqadoodu tahay inay qabtaan ee looga baahan yahay iyo feelingkooda dareenkooda qofnimo ayaa iskaga qasan labadaasna inay kala baxaan baa loo baahay oo dad fara badan oo mas-uuliyiina oo shaqaalada dadka shaqooyinka dadku ay qabtaan shaqooyin fara badan baa jira oo marka shaqadaa aad ogolaato inaad qabato aad ka tegayso shaksiyadda weliyanimadu waa qayb ka mid a dhaqaatiirtu waa qayb ka mid a boolisku waa qayb ka mid a shaqooyinkaasoo dhan waxaa loo baxay personal feelingkaaga iyo professionalkaaga kala kaxayso anigayga qisayga ka dhacday magaalada hargeysa ayaa doonaya in la weliba arrintaa booliska ku saabsan xilli aan waddanka joogay maalin anoo hawl shaqo ku socdo oo gaadhaan le wata ayaa laba inan oo boolisa oo libisan halkii anoo maraya qaydarta la odhan jiray qaydarta
dadka imika malaa garan maayaan magac kale imika maxaa loo sii maxaa loo bixiya halkii qaydata kole wax kala bixiya qaydatu calaa boole marka laga dhafo way tira seshinka ku xiga xagga booliiska marka loo kaco xagga saldhigga booliiska marka loo kaco laba nin oo booliisa ayaa halkaa gaariga huurkiisa dharbaaxa la dhacay gaariga noo jooji nin bay hayaan ninka midba gacan buu hayaa midba gacantaa uu hayo xagga soo xigta feer iyo feerjilib iyo hirdi iyo waxbuu kaga waalaya ninka ilmaa ka daayaysa dhanduuf baa ka daaya dibnaha waxa ka daayay dhiig iyo dhareer iyo wax socda midba fara badan oo kala kala waa farki la moodo sida calankaa Soomaaliya mid wax yar ka daaya suuq iyo jaaqtoro ninkaas ma laha xaggaas mid ka wareegay marka istaageen kulada balkaariga istaagona waa dadka qurbaa ka yimaadaan marka waddanka yimaadaan aad bay soo ururiyaan dhibaatada ma jecel horada istaago xaggaas intuu ka wareego xagga dambe xagga ka galay kii kalena xagga uu galay ninkiina dhexda geliyeen haddana meesha bay ku garaacayaan waxay istaashkan geesashu wax dhow meeshu waa traffic waa cidhiidhi way ka arkay intii la nuudayay baa ninkii waxaan ka fikiray war nimanka maxaad ku jira hada koos waxaanay samaynayaan waa qayrar sharci waa wax bidnaanimada ka baxsan in yar ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu waafajiyey wuxuu ku waryaarayaa ninkana garaacaysaan ee hirdida iyo feerka iyo laadka la dhacaysaan waxaan ka oohinayay qofku waa la qaynaanay ma garanaysaan waxaydan waa maxay inta sidaa u jeesto sidaa u taabtay shaarkiisa ku wuri waa shaarka la dilay adigu dili maysidee maradan aad xidhantahay baa garaacaysa anigu imika meel baan ku socday hawl baan lahaa gaarigaygii baa ribaaxa la dhacday meelnagee baa tidhi waad i joojisay waan istaagay ima taqaanid gaarigana ima iibsanin maxaan isugu kaa taagay kuwa garanayo weligii maanta ka hor kumaan shaar kalaan garanaya waan ku dhaatay wala shaar kalaad xidhan tahay kaan garanaya haddii berita anigu aa wax sameeyana sida ninkaasi aadu garaacayso ayuubaad ana ii garaacaysa dad baa xidhiir baa ka dhexeeya dadkan iyo booliiska haddii qofkani ninkan waxaa laga yaabaa weligaa intaad adduunka ku noolayd inaad arag oon cirdigaaga iyo reerkaaga iyo maalkaaga midna aanu waxba yeelin laakiin waxaa sharci buu jabiyey ummadoo dhan ka dhexeeya sharciga adigu ma lihi qofka soo garaaca lagumana soo qabaa lagu yidhi istaag baa adana sharci baa jabisay haddii uu ku diidana waxaad xaq u leedahay inaad kuwo kale ugu yeedho fara badan inaad qabataan warkiisa soo qorto wuxuu sameeyey maxakamadda u gudbiso maxakamaddaasa inay garaacdo iyo in la dilo iyo in toori lala dhaco iyo in jeel loo dilo iyo in sida iyadaa ku shaqale adigu shaqo kuma lihid inaad qofkan garaacdo inaad ku xadgudubto maxaad bal ninkan eeg nin wuxuu yiri istaag jooji gaarigu waxaan ku wari waa badan istaago maxaa dhacay wuxuu ninka war sii deynay in istaamax waxaan ku wari anigu wax ku saamixi maayo xigmada ninkan aad garaacayso istaamax labadii nin waliba haddana ninkii gacantii soo xigtay intuu qaftay ayuu halku kaga waalaya feerka dhunkasho iyo labadii saddexdii ninba way isku والله waxaan xasuustay ilaahay ha naxariistay gaariyada lahaa waxaan ahay nin arkaya ummadayda tasawuday usha loo qaban waayay aniga iga bilowbo abwaankeedii ka seexday waxa qoonkii tagaysay afweyn oo laga reeyay ujeedo uga tagay ciidamadeenu waxay u baahan yihiin in loo sheego information imika baan dhawta taliyeen hadalkaygaas waa nasiixo tali ilaa dabla ilaa taliya waa kuwii xildhibaan isku dhacay waa kilaa shaarka ku taliya xildhibaanka shaarkiisu shaqadiisa maaha fiilinkaaga hayso dareenkaaga hayso gurigaaga markaad la tagto meesha doonta la aad laakiin intaan saarka xidhantay sharcigaad u socday sharcigaana wasaaradda daakhiliga waxa weeyaan xurm ahaan bay isaga hortageen laakiin sharciyan qayban iyo booliisku justice department ka shaqeeya wasaaradda cadaaladda u shaqeeya waxaa ka badan ay hoos tagaan wax qofka ay soo qabtaan wax xaq u leeyahay dembigaa ka gudo maxkamadda xaq u leh booliiska boolisnimo noqon mayso islaamka la sheegay in raatiyo feer la isla dhaco booliiska waxaan usoo jeedinayaa in ay ogaadaan professionalkooda inuu yahay inay sharcigaas ku ekaadaan ee aanay fiilinka madaxweynuhu ku amraa sharci ma shaqo ma lihi sharcigaa baabaya sharcigaas shaqaysa hadalka waa yar dheereeyey aad baan idin wada salaamaya wasiirada waxaan leeyahay soo dhawaada xilli adag baa noo timaadii graduation adag baa jiray oo aada u fara badan dee markaa kole warkaygana waa xisaanada waxa la yidhi xintaada xinkeeda kuu baxo warka waa ladisoo gaarsiiy aad baan idinku soo dhaweynaya magaalada iyo xusiga waa khusuusan cadaani aad baan idin soo dhaweynaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu الشيء على قد ما سيء كل يوم حنسوي وحال لايف نسوي كذي دونا حل مع برخو بتون ونسجن الرجال وكل أونلاين كورس لايف سوكر بس نكمل
9 o'clock soo gelaya kale markaa ilaa 25 minutes baan haysanaa waxaan kusoo dhaweynayaa hadda xogeyaha wacyigelinta iyo abaabulka mudane Caydiruus Maxamed Yuusuf inuu kelmadiisa inaga isagu بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما dhammaantiin ba haweenka dhalinyarada odayaasha wasiirada martida inoo ah waxaan ugu soo noqonayaa dhammaantiin ba salaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu salaan kadib marka hore waxaan baryo iyo bogaadin siinayaa dhalinyaradii guddigii siyaalo ee soo qabanqaabisay xafladda quruxda badan leh iyadoo weliba waqtigu gaabnaa graduation badan jiray isku hawlay weliba gaar ahaan haweenkeena waxaa leeyahay sacabkaa loo tumo oo shaqadan iyo hawshanka hirgeliyay marka labaad umaan soo qabsanin oo hadal intii aan odhan lahaa waa la yidhi laba midun baan usoo qabsaday mid waxaa leeyahay dowladda kulmiya waxaynu wuxuu yidhi dee qofka binaadamka wuxuu shiltuu sameynayay mid ka daran ee tan maanta socota ee dhalinyaro meel intikhaabiyada lagu balamiyey wax loo sheegayay mudaharaad jirin xabadda lagu furay madaxda la xidhxidhay wax loola yaabo oo qof weyn oo dameerlihii la yaaba ay ka sameeyeen oo guddoomiyihii madaxweynaha tomorrow mustaqbalka dhow insha allahu cabdiraxmaan maxaa cabdilaahi gawaaridii booliiska oo aynu arkayno oo gaashaaman la damcayn la jiirsiiyo ragga la xirxirayo waa xamarji waa cukuse waa waabeya war raggan la xirxiraysa waa laga intii qaranka majinkaad u talin kuwa xirxirayaana way garanayaan xamarji iyo muuse iyo nimankana way iswada yaqaaneen laakiin ninkii wadan tagaa waxdad wadana qabiil lagu leexiso dee wadana qabiil maha wadani waa qaran waa xisbi qaran oo la wada leeyahay halkan aan joognana kaga dhex muuqano caalamkana kaga dhex muuqano cid maanta aniga iga lex Caydiruusaana ma jiro ninka qabiil waarkeedu waa badgaamunta habeenna baa jiray xisbi qaran weeyaan xilliganna waxaanu u leenahay madaxweyne doorashada qabo xeer 14 ولي إلا حتى عن بانكرس اللي أقدر معها واحد تستورك يحير كنا تستورك هذا معك قبك نسكر معها كواحد دانتا ومنتا إيه دالكا نينا بدي باتو وقوم شفتوا مانتي البايك دارو لكن وحلو كربدارية ودور شدا ينوفن برسيرتين سنو نوصعونية عدة ترى دبنا ينام حبت هدي أنا وصل نقطه waxay dhahay ilmo ka keenay waxay dadkii naaka fadhida inta Soomaaliland joogta dalaali weyn oo aan maraka ahay aniga ilmadeedu gooni u tahay ilanta uu khalad harantida la dhacay la gayo dhacay beerka ka garaacay shar walaalkeed baantu dhintay Allah nacse baaw wuxuu hanikii ugu horreeyay ee saxaabiya ee Soomaaliland ee dhinta sababtii uu ku dhintay inankaasi mid foolxun bay ahayd muusena dagaalgeliga u hayo kalabay bay ahayd xeerada ayaa qabsaday wuu joogay 5 nin baanu ku joognay 2 naga carooyinka magaalada jooga 3 na xeeradaan ku hadhnay bacow baa allayaarxme annagaa dibnoo nili gaarigaa gal mujaahid buu ahaa waqtigiisii tacliintiisii waddankiisiiba usoo lumiyey dabeetana sidiiba beebeegu ku qaldamay beebeegu galay baa nalagu keenay xerada faqashkii wadata halkii baa nalagu qalay qofka nool ee maanta aniga belidoogo keliya waanu ogyahay madaxweyne muuse waanu hayaa taariikhda maalin berigaa waxaan ka yimin oonu ka wada hadlayni mar walbana waanu ka wada hadalaa nin baa wuxuu ku soo qoray inantaa walaalkeed waxaa la sheegay mujaahid bahaayo inuu galbeedka hargeysa ku dhintay qofka nool qofka dhinta qofka nool baa markhaati u ah ninkaasi mujaahid ahaana dee cidna kama qarsoona intii maanta walaashii lagula dhaco kii garanaya la dhacaana waxay ictiqaadi u karaysaba ma ahan marka waxaan leeyahay booliiska war uma shaqaysaan xukuumadda idinku sharciga u shaqaysaa saa laydin wada sheegay
ummaddiina iyo shacabkiina walaala ku tihiina sida suldaanku sheegay rashiid sheegay cid walba ka hadashay shicibka hoos u eego maalinba nin baa tali maalinba awr baa dhaamiya hood dadka wax loola hado dalka wax loola hado intaasaan kaga baxayaa ninka awoodaya wadani qabiilowna habeen maad seexane annaga u hadlayna annaga u doodna annaga u dhimanayna kii naga hor istaagayo kaaliba farada adaa aragtaas ku agtooda wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu xogay aada buu mahadsan yahay cabdiruus maxamed yuusuf waxaan jeclay in kolley inaan reer siyaaro ka dhammaado oon u yeedho oday cismaan xaaji muuse bulaale soola kelmadaada gaane بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل هذه ركبة ركاب الرئيو إلى البشر يسوي تاكتو شرف بدل ملها صرت مرة دور الشعر أنا دوري هنا كده هنا كهر رئيو مرة دور يجهر مري أروح أروح يبدأ ويرتي فالهو رسول السلام يا مرة بعد كمل أحد شرف طريق ويصير شهرة وإنه يا سهيمي مرة كقار كود لكن لا ينسوا عليه وأنا يا أبو ما هذا عينه إلى هنا بكرة جيم قار بدنا كلامكم ورثا شريتوا باللساناتي إذا أكثر يعني مدحتي كورني سي أشرفت بدل ما نوصل نقطي يعني لا يسوى هديو أيام إلهي وقبريا والدي سوري وين سكال يلا غير سوري وين أدي أرناي شهرية إصباحي سيرا سياتل إذا أدي أصير لافو هذا كيد وحسيد مي حبله تكيوري أو بشيء كليا يرونيا قدر كي القوة ومن بيا كبر العالم وقال دور الشدة دور الشدة أنو حركتها إنهي صدحية طبقة وحكاية أو نكتشن في كل نبتسم وحاولنا هي شرعي حلوه النقضة وحبيان قارا بي بتفرق لأن كل بلا صوع عيارسين وحبيان كل بلا على قصورين شغلتو حال المقعابة يواكيسين سي أي إلى ما يرسلوا بلطو صدح على اسماء يالكيرون اللي كوبيش من غليا وأمورك واسيبتو وحاولنا هاي تا دور الشدة بيلا كمان معانا طلبات أصوصتي وحوي waxaan doonaya inaan cambaarayno oo si dhaba u cambaarayno ficiladii waxishnimada ahaa ee maalintii dhaweyto ka dhacayay suuqa dhexdiisa saraakiishii garbacaseed ee gabdhaha laad kala dhacay cid iyo dhuboon ka cambaarayna weliba waxaan leeyahay anigu noocaas dowladdu hadday wax ka qaban weydo si allaala iyo si wax looga qaban karo ilaahay baa ogol in looga qabto أسوان كل العلم هذه بوليس وحلا نور أكثر حمر شوقه يا هاي سبولي بينه وبين معارض قاعد فوقه أيام ما تري بوليس كه الدولة ده استعمال تستي فرحان ضروري تبركه وفرحانه ودقيقة لغة جوجل بوليس دقيقة يا لغة جوجل طبعا كانوا حلا طبعا كانوا دقيقة لغة جوجل تمرنا دقيقة كاشان الله بوليس قوت شوقه ككسي دبينه وتشوفته والدولة هذا تكتب شيء تيجي هذا المصيب مال ضيو يلو يسكرين الآخر والمطفي هاي وحلا هاي شرعي كو هدافن واحد بوليس لماذا كو أو قشة أو برسمات لكن هكو دقرن واحد دنقار أو قفلي خاصين البوليس هدي من هاي حزبية ذا صباحي سجا وشيء كانوا ما هدل دمين
ujeedkeennu maaha carqaladayn waa toosin mar kasta waa inaynu ogaanaa dalka innagu inaanu leenay mar kasta waa inaynu ogaanaa nabadgelyada in ay danteenu ku jirto maadaama innagu aynu dalka u danaynayno wax allaale iyo wixii keeni kara foolxumo mudaharaad markaynu dhigayno waa in laga fogaadaa midka labaad waa laydinku soo dhex gabanayaa dad baa laydinku soo dhex darsanayaa dad baa rasaas soo qaadanoo idinka dhex ridi doona dad baa boobi doona meel kale ka yimi ayaa dhexdiina wax ku boobi doona ha laga digtoonaado oo fiiro gaaraha loo yeesho assassination nimanka kulmiyaa la yidhahdaa kulmiyana waa mafia dee qoladii ka soo baxday kolley jibi horaa ka soo maxaa la yidhi jibi idinkaa keenay saara dee mafia baa la dhiilgaraysa brigaadtaa la dhiilgaraysa dee idinkaa nooga xoogaansanay dee siday wax odhanayaana noo sii sheegay aada iyo aad baa mahadsantihiin xildhibaan normaalasa kusoo dhowow dhammaan reer Seattle Washington gobolka Washington waa lagu maqlayaa markaas soo dhowow waa mahadsantihiin marka waa bilaabaya hadalka soo baa xildhibaan bilaaban karta adigo mahadsan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد وحن سمي الجيل شرفنا والسلام يا ويا شبرت هذه الموضوع رجالنا نقول وضيع المثلية عبد الله الجيل يو أصيب على عباني نقول الحوية أمام الجيو المهدي بدأ كم قاعدة الحسبية si guud xaaladda dalku waad la socotaan oo imika xaaladda iyo wixii soo kordhada guri technologia oo ayna waxba isku seegenayn dadka oo aynu dalkuwada jirnaba ku jirnaa haddaan siraadada wax ku kaab waxaa ka maqan aada u sheegi karayso madaxda hadda ku maqlaysaa waxaa ugu weynay mushkiladda hadda dalka taagan waxaa weeyaan khilaaf siyaasi ama ama khilaaf sharci oo madaxweynaha dalku ururayo oo salka ku haya 5 sannadood ee sharciga ahaa ee lagu doortay 150 cisho ayaa kaaga hadhay waxaana waajib dastuuriya kugu ah inaad doorashadii madaxtooyada aad qabato sida qodobka 8 gabadhiisa la wadaagayso haddii aad heshada lagu hambalyeeyo haddii lagaa helana adigu aad hambalyeyso tii madaxweynuhu khalkhal ku geliya dalka oo maalin kastaba la doonayaa ilaahay dadka kala badbaadiye mooyaane in dadku ay runtii isku baxsadaan oo dhiig iyo nagala maadaaco ilaahay ay naga hayeen marka waxaad moodaa dadkii runta sheegi jiray ee somaliland lagu kala baxsan jiray ningarboodka ahaa ee qiimaha lahaana inay dabar go-ayaan oo aan hore runta lasugu sheegaynin mushkiladu waxay ka taagan tahay waa bartaa waxaad moodaayoo kale inaan sharcigiisiisii loo dabaqaynin waxaad moodaayoo kale in waxoogaa kala fogaansho aragti siyaasiya oo bilowgiigu bilaabatay oo siyaasadda qaybiga iyo xukunta ee kulmiya unoo soo gala 5 sano kahor ummadda u dhex dhigay iyaduna ay jirto inay hawshaa galaan oo kalsoonida aanu siinay muddo 3 cishaa madaxweynaha sugayeen shalay buu baxay beri sanaasadu la balansan yahay haddii ay arki waayaan iyaga laftirkooda inay hadlaan oo somaliland ay runta u sheegaan yidhaahdaan qofkaasa khalad kale ayay u muuqan doontaa si guud dadku waxay u hamuun qabaan isbeddel siyaasiya rajaa gashay waxay rajo ummadda ku gashay doorashadii 2017 dalka ka dhacday maxaa ahaatay sida laba filaanka ah ku dhacday qabyaaladii aanu ku baabiinay taariikh weyn noo gashay tii iyadoo rajadeedii la qabo oo laisleeyahay qarannimaha loo gudbo oo qabiilqabiilha laga baxo
dib haddana wixii aynu kusoo gudubnay xisbiga kulmiye iyo xukuumaddiisa ugu istaadheen waa garmaqaatayaal aan diyaar u ahayn dalkeena doorasho ka dhacdo ilaahay waxaan ka baryaynaa jidka toosan iyo ka sharciga inuu ku soo celiyo innaga waxayna la gudboon inaynu si wada socono waxayna la gudboon hadaladaynu odhanayna haddaynu madaxda xisbiga iyo taageerayaashaba nahay inaynu markasta somalilan aynayna uga soo reelin oo aynu dadka ku jihayno somalilandnimo oo aynu carabkeena ka dhowrno inaynu deegaano iyo dad gaarays hayaan xaaladdu haddii guddigaasi ay war soo saari weydo waxay istaarmaya mar labaad mudaharaado waaweyn oo dhibka gobolba la isaga soo baxayo oo aan dib loo noqonaynin ilaa iyo inta darinta sharciga ah ninka madaxweynaha dalka madaxweynaha uu kusoo noqonayo marka si guud mushkiladda maanta dalka haysataa iyadoo sicir barar jiro iyadoo maciisho dhici ka marayso iyadoo bawaadhadii dadweynuhu inay istaagaan bahiyar ay u jiraan basaskii oo 10 mitir shidaalka konton somalilan ahaa oo $5 ahaa oo imikana uu marayo 10 mitir $10 uu marayo $10 marka inay haddana mushkilad kale oo maxaaytay siyaasiga madaxweynaha caawira waxay keenaysaa isku dhac iyo isnacdadeed dadku iyadoo nabaradaasi ku wada yaalaan haddii mudaharaadadu sii xoogeystaan waxaan isleeyahay si aan loogu talagelin bay usii laba qarxi doonaan dadku way taagan yihiin qurbaha niyajad baa ka taagan gudaha niyajad baa ka jira waxaasoo dhanna waxaa ku imanayaa oo nabadaada niyada farayna ka bixin sanduuqaanu dhiganay iyo sharcigaanu samaysanay aanu ku kala baxno iyo ku kala bixi mayno marka rajo dhigi mayno ilaahay waxaanu ka baryaynaa in ilaahay subxaana watacaala dalka iyo dadkana inoo ilaaliyo innagana guusheeda siiyo nagana dhigo kuwii dalka iyo dadkana wanaajiya idinkana de waxay nila gudboon labada oday inaa naga wakiilkaana dib istaagtaan in runtii xisbiga soo taageertaan waxaan jecelahay iminkana inaan soo dhaweeyo waftigii mar labaad labadii wasiir ee hore mudane cabdullaahi geeljire iyo mudane cusmaan saxardiid cadaani labadooda mar labaad waxaan leeyahay kusoo dhawaada gobolka washington iyo xisbiga wadani halkan maaragtay idinku soo dhaweeyey maanta sharaf bay noo tahay inaan noogu timaadaan siyaara washington aanu gacmo diiran idinku soo dhaweyno gobolkana wuxuu ka mid yahay gobollada maraykanka xisbiga meelaha awoodda badan uu ku leeyahay ee maarata laga taageero xisbiga xisbiyada kale dee meelay ka jiraanba maanaan arkay waan maqalaawun laakiin dee marmar qof taageero waa aragnaa laakiin majority-ga xisbiga wadani gobolkan iyo gobollada kaleba xoog buu ku leeyahay programuu leeyahay shira buu qabsadaa marka idinkana sharaf bayd ii tahay in maaragtay idinka weliba usoo beegmay maalmo graduation ah oo dadku ardaydii iyo dhalinyaradii maaragtay farxad la dareemayeen graduationka ardaydoodii iyo carruurtooda haddana sharaf bay noo tahay maanta inay noo timaadaan iminkana waxaan jeclay inuu kelmadiisa qaato oo uu maaragtay nala wadaago xoghayaha abaabulka iyo wacyigelinta ee xisbiga wadani ex wasiir mudane cabdulaahi geeljire kusoo dhawow falsafada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka ugu horeysa ilaahay baa mahad leh suuqeen keenay inagoo nabad qabna oo wacan marka xigtana dadkiina sharafta leh hadda lagu soo dhaweeyey ayaa mahadda labaad leh walaal hadal badan caawa odhan maayo cadaani baa iga yara dambeeyo cusub oo hadalka badiisaan u dhaafaya marka ugu horeysa aada baa u salaamantiin odayaasha haweenka labada suldaan
سلطان عبد الرشيد سلطان عبد الوهاب دمانتين أدبو مهسنتين وأنا السلامية وأنتين سيدي هذا الوش شيئتين أنا واحد معانتي اللي حسبي كلمية حسبي كلمية ما كانوا هاي ندي وضني ما بتشيل وضني هو حسبيات وتوصل لون كليتي هسه شيء متداير فوكس بدي قلوبته شعبي فربضان وكله نص marka laga qiyaas qaato doorashadii hore dadka codeynaya Somaliland ka codeeyay nuski imankana haddii la qiyaaso sanduuqa oo kiliinkilada kulmiye ka soo baxo dhulka la dhigo waxaan filayaa inuu 7% ama ka badan noqon doono marka anagu markaan xisbiga kulmiye ahayn waxaan naga filaysay inaan mabda kula joogno gaangistarrana maanaan ahayn halaagna maanaan ahayn xisbi qaran baanu ahayn dad odayaala oo mabda kula jooga marka inaan mabdaa kusii joogno ilaa inta mabda'ii aanu ka gaadhsiin karno dee doobe ما هي الواقع أنه قلنا إذا حسب الفتاة إنه بيجليه هذا ما يسمونه جريدة تاس لكن بس الدرو حسب جيجي مركو أضيجي وينا أساس كي سلاك تيجي سبضنا على العلا مركو على الحلا أضيجي ثلاث وكبحه إن حليماته أنت بدل ضيع بقى يا لا ضيع عصا كل عي حسبي يا حكومتي وسول كهذا وكا خاصة بين نقطة إلى أن الله سيد الكريم بالبالي وحي يرد هاي أفريته مكي قفة مكي مدحوينين مشرح الله دورني أفريته مكي قفة يدي نو دينا مشرح النبي صلى الله عليه وسلم لكن الضنوان العدي بس حسبي كان كذا وتخيل نقول مايو والمراد يعطي يجوا على قبتي ولا كان بيجري والعدي اللي هو كل شوينا إنه هو قال ولا يسمع الله أو ارتضت كا لا شغالين كريا لا تنيني أو تلين سقاطهم ووحي نوبرا حسب جوبرا فلني فسنا مركي دعوة إذا حسب بين نقطة أنا مكهذا الله ودينه سيدا صانع حسب كما بتيجي له ولا يقصر وما كان عامل سوى الشيء غلطك ما كان كهذا وحاولي أن كعبني وحوها كلفوجين الشعب كا رسومنا ولا يستعمل وكان بيننا المقري حكومة دينا المعمولي إلا هذا الأركيسين يولي له لا تلمامه يو وحيابا إنان راليك هاي أنا أقول مياه وحنا كان تعرف كيسكي أنا معمولي أنت الله كاشري أنا دليرة يدك كيلو فوقادي أنا أليس دليرة أنا قالوا سمعي برامجيس نحجرة وأن ضد وجوره خرج أو دبنا اسكت درا أنا صامر مريض دجاجة أنا صوت سيري دتك ولا لي أنا صوت سيري يجي ولا لي أنا عدل اسمه سارة المية ده صوص أنا صامر يجي ولا ضد يعني أنا كريه سير صار كان كيني حكومة يعني ضد بدنا نعول بلاي قلا غير بعثنا قار كلمية تاجرة هي قار وطني تاجرة
labaduba igala qayb qaataan waayo dadkeenu waxay jecel yihiin walaalnimadan inay walaalahaadaan waa leeyihiin badde marka horta mar walba inaynu walaalnimada ilaalino aynu wadajirka ilaalino oo wixii aynu isku qabanno way dhammaan doontaaye aynaan xaragada ka tegin xaragada oo aynaan wanaagga ka tegin waa muhiim inaynu sharaf yeelano aynu walaalnimada dhowno intaa markaan ka baxo waxaan anigu markii hore qorshuu ahaa intaan reerku waalan in wafdi kaloo ballaaran oo sharxu hogaaminayaa oo halkan iyo kanadaba soo maro isagoo idiin mahadnaqaya oo ay siyaatalna ay ka mid tahay ama ay tahayba halka meelaha ugu horeysa ee taageerada xusbigu si lexaadle ay u muuqato inuu halka yimaadaan bay ahayd hase yeeshee hawsha taagan iyo culayska taagan dartii way suuroobi weydey in waktigan loo soo baxo wafdi dabeed labadayadan oday baa lasoo higmaday inaanu communitiyada intii aanu gaadhno gaar ahaan idinkan aanu idiin nibaadno annagoo idiisidna mahadnaq iyo salaan ka timi musharaxa madaxweyne iyo guddoomiyaha xusbiga iyo guud ahaan madaxda xusbiga oo idin leeyihiin waa mahadsantihiin allah idin shar intaa kadib waxaa waddanka ka dhacaya dee kulligii waa fahamsantihiin waxaase laga yaaba in waxyaaba yar idinka qarsooyinba sheekada hadii goraale wax wala soo baxaa oo laba dhinac bay leeyihin qof maalin walbana ku dhex jira oo taagan unbaa la socon karaya waddankeena cudur kale ma hayo mushkilad kalena ma hayso waxa haya madaxweyneheenii baa allaha ka daweeyey waxa ku dhacay damacuna indhalaan buu keena damacsiyi inuu kursiga iska fadhiyo saanu aragno waxaa kaloo ku dhacay ficiltan uu la ficiltamayo madaxda xusbiga waddani oo uu leeyahy waxaan ka ilaalinayaa inay waddanka hoggaan ka noqdaan iyaduna waa indhalaan kale keentay haddaanay indhalaan keenin madaxweyne wuxuu arki lahaa inuu xeerku sheegayo dastuurku sheegayo in ay doorashada madaxtooyadu tahay mid historia oo taxeerka caadiga uu sheegayo sida furashada ururada inay ka soo horeyso oo ay khasabtay in waktigeedii la qabto haddaanu madaxweyneha damacu dha tiri wuxuu arki lahaa oo wada akhriya lahaa go-aanka maxkamadda sare ee sheegaya inaanu xeerkii u dhammaystirayn furashada ururada cusub ee yidhi ha la iswaafajiyo xeerarka halala dhammaystiro hadduu madaxweynuhu aanu damacu indha tirin wuxuu arki lahaa baahida ay dadkiisu u qabaan waktigan la taagan yahay ee sicir barar iyo abaaro roob yaraan dunida waxa ka taagan waxay sababtay waxay maamul xumo sababtay labaduba waktigan ay intaasoo dhibaataa qabaan inuu mid culus oo muran iyo dhibaato ku timaada nabadgelyada keeni karta inuu ugu biiriyo isagoo uga jeeda uun ama qof baan diidanahay ama cid kalean diidanahay ama waxaan doonaya inaan
meesha aan iska sii fadhiyo hadduu madaxweynuhu aanay la tirin damaca wuxuu arki lahaa wixii shalay dadkiisa uu ka hogaamiyey inay ka dagaalamaan uu ka mid ahaa isagii kuwii kale usoo dagaal galay oo uguma hadnaqayno inaan maanta laga samayn ciidan uu soo diray iyo cid uu soo amray aanay maanta samayn ayuu arki lahaa haddana madaxweynuhu ku indhalahayn damac kursiga ka haya oo indha tiray wuxuu arki lahaa markaynu dadkii qoryahaynu haysanay inu dhiibanay aynu inta yada kale guryahaanu dhiganana intana inagu ilaali ay iyagu hayaan qoryihii keliyaha aynu haysanay iyo hubkaynu haysanay inaanay shicibka intay u yimaadaan aanay dhowda kaga saareen ayuu maqli lahaa oo arki lahaa waxaasoo dhan waxa ka imi tiray waxa weeye damac mahlaka bay jiraan carabta waxaynu ugu baaqaynaa madaxweyneha dowlad waliba ama xukuumad waliba waxay leedahay nidaam xukun oo la raaco ta iminka jirtaa madaxweynuhu keliyaa ka taliya waynoogi xaba dadka meelaha ka hadlaya way ka tirsayiin nacam qaarafkiisa way ku hadli karaan nacam laakiin go-aanka isagaa dowlado kale oo laga yaaba in go-aanka la wada lahaa talada la wada lahaa laakiin tan waxaanu ognahay inuu madaxweynuhu keligii leeyay sidaa daraaddeed inagu sidii ay iyagu maalintii dhaweydii yeelayeen shirkoodii kulmiye ee 20kii sanad guuradii 20aad ee uu madaxweynuhu fadhiyey markii lagaga hadlayay erayada dadka kala fogeynaya markii lagaga hadlayay cayda iyo xumaynta musharaxa wadani ee uu ilaa goosdabeelka ka qoslayay inagu ku farxi mayno caydiisa caymayno karaamadeenni u sida ku farxi mayno xumaanta laakiin waynu u ducaynaa inuu ifta ilaahay soo waafajiyo xaqa waa ta labaad innagaa u sheegayna oo aan marnaba ka gabanayn kana joogsanayn inaynu xaqa inuu ku soo noqdo u sheegno waxyaabaha sida qaladkaa loo maamulayo ama loo soo dhiirigelinayo waxaa ka mid a ee dadka armushka loogu riday qofku markay ummaddu tidhaaho waxaa ayaanu diidaynaa waxaan soo banaanbax baanu samaynayna banaankaanu qoyar usoo baxaynaa wixii baanu sheegaynaa la yidhaha waxaa lasoo cabaynayaa ciidanka blaceka ama ciidamada oo ka hortaga la odhanaya hadday ka hortaga timaadona de waa isdila ilaaliya la odhan maayo way soo baxeen ilaaliya ama way soo baxeen haraak galo ilaaliyo hadday rabsho sameeyaan qabqabta la odhan maayo laakiin sii diyaar garooba ka hortaga iyay soo bixin soo bixina waxaad arkaysa hanjabaad dee nin lasoo askari lasoo cabeeyey oo la yidhi ka hortag dee wuxuu marka horeba askarinimadu iyo ka hortag wey ka hortag buu markaa ku dhameeya anigu waxaan ahay dhal askari bolice bu abahay laawnaxaas abahay baa adeerkay baa ahaa sodonkay baa ahaa all bolice bay ahay weligay blaceka kama hadlo erey xubna kuma odhan inaan taageero mooyaane waayo waan ogahay duruufta ay ku noolyihiin waan ogahay siday yihiin baad arkaysa ina yaro askariga intuu dhagax qaatay isula taagay cere iyo ina cere iyo xirsi iyo musharax iyo buf ku tuuray wuxuu doonayaa
markay yidhahaan waroo maxayna qorigii ula baxay waa provocation ma ilaalin ma nabadgelya ilaalin ba waaba iska shirayeen markay iyagoo bahashii iska biibiinayeen indhaha lagaga riday qiiq ahayd ayuu haddana isla tahay way halkiisa kulligooda daawatay de waa inama yaroo la yidhi madaxdoodiiyo hanjabaysa ma soo bixi kartaan cagta maanu idin marinaynaa waxaa shugaysa markay arkaan dee rubay moodayna waa waxay naga qaldan waxay noqon lahayd dadkaasi hadday soo baxaan intaasoo ciidan ee gawaadhida lagu sidee lala wareegayo ama dadka lagu hadidayo ama laga horkeenayo dee mudaharaad laga horkeenay wey waa laba mudaharaadoo iska horyiyo de waxaa ka dhacaya mashaakil hadday hareeraha ka iska taagi lahayn oo la waryaale hareeraha iska taaga qofkii wax sameeya qabta annagaaba waxaa la qabanaya madaxda xisbigaa la qabanaysa kii rabshadooda waxaa la sheegayaa xabadaha dhacay inay rag dharca gashan oo baastoolada sidaa qaar rideen oy ugu dhufanayeen qaarna kaawadaa ay danan kacaysay oo dareyskii shanayn khatar bay ku tahay taasina ummaddeena waayo garan maysid qofkan inuu adiga ku dilayo wuxuu yahay garan maysid mar hadda dhar cadda inay soo dhex gasho ma dhar cadda waxaa dharka loogu caddeeyey oo dadka loogu egeysiiyey inay ka war keento inay dadka la mid noqoto oo waxa socda ay sugto nabadda dharka u gashato laakiin intay baasastoolada usoo laatay inay xabad ka dharrido sida la sheegayo maaha sidaa daraaddeed sida idinkuba halka ka sheegteen wax allaala waxa aynu isku haynaa waxa weeye ee murankaa soo keenay sanduuqii aynu ku kala bixi jirnay een doorashada ku qabsanaynay noo dhin sabab allaala sabab uu madaxweynuhu u diido oo aan ahayn xumaan waxaa maqlaysaan qaar leh kuwii horeba waa loo kordhin jiray loo kordhin horta waa kow korrisidii hore waxay ku iman jireen sabab ta ugu weynana sharci baa ahayd xeerka oo qoraya doorasho lama geli karo diiwaangelin la sameeyo mooyaane markay waktigii timaadana si looga gudbo waa lagu heshiin jiray diiwaangelintii aan waktigaa samaysano sidaasaanay ku iman jirtay in markaa siyaadaba ha ku darto guurtidu waktiga lagu heshiiyo badanaa siyaadaha lagu dari jiray laakiin nidaamkaasuu mari jiray xeerka heshiiska laakiin xaqiska mara madaxweynuhu inuu iska yidhaaho inaa ama cidaafkiisa ku hadlaysaa tiraa xabaddan madaxa idinkaga qabanaya haddii kale halii kordhiyo ama wax oo dhan baan ayaan dee qasayaa halii kordhiyo haddii kale ama inaan filay arrintu ma aha muran sharci ka dhashay arrintu waa iska indhatir iyo badheedh ka socda madaxweynaha iyo dadka la taliya taasina inama dhaqno waxaynu leenahay miyirka ha lagu soo noqo waxaynu leenahay wanaagga ha lagu soo noqo hadday 5 sanood waxba u tari waayeen madaxweynaha waa ogtihiin 5 sannadood wuxuu baanu ka shaqaynaynay doorasho ha la qabto doorasho unbuu waddanku ka shaqaynay martii baarlamaanka laga shaqaynay martii deegaanka laga shaqaynay commission baa laga hadlayay mar walba wax lagu khilaafta uu soo dhex tuuriyay si muranku u dhaco mar walba xisbiyada mucaaradka way ka dul qaadanayay waayo danta dadka iyo danta dalka waxay ku jirtaa in hore looga socdo ma aha sifa shaksi kuma wada hadalo fulay iyo geesi kuma wada hadlo dan qaran baa laga hadlaya
dulqaad baa la doonayaa waa ogtihiin waxaanu nidhi waxaanu ku dhaqmayna waxa la yidhaaho mucaarid milgeli sharafta aanu doonay kulmiye markii aanu ahayn wixii aanu ku caaridi jirnay dowladda wax ka bedela maanu ayaanu keenay waa ogtii kanuu xaday kanaa la xaday waxaanu dee aanu shubi jirin anigaygaas wixii aan qori jiray waa garanaysa mid qolo kumaanaan odhan madaxweyneynka jooga isaga wax kama naashiy musuqmaasuq uu sameeyey wax kama naashiy xitaa waxa muuqda ee dadku wada arkayaan kumaanaan caawin waanu ka xishoonay dadku sidii hore maaha dhowr iyo 10 sanadood ka hor waqtigii la joogay dadku wada inowey dadku aqoon bay yeesheen dadku way arkayaan wuu muuqda isaga iyo dadkaan u kala baxay waxaan u kala baxay naxdintaan u diidayna ummadda had iyo goor waa la haystaa iyo waa la buuqaya natiijana ma keeno waxaanu sugayay wixii sharci ah markay gaadho inaanu nilaa ku soco hadduu diido haddii kalena gerigii qabsado maanta halkaasay taagantay hadduu ka meeraysto iyo hadduu dayaarad ka raaco ceedaabo tago iyo hadduu soo noqdo iyo hadduu iska fadhiyo intaba waxaa looga fadhiyaa inuu doorasho qabto waktigiisa xalaasha ah ee la doortay inuu wanaag ku dhamaysto oo uu ku qabto doorashada hadduu ku qaban waayo ka badheero oo ay 13 Noofambar gaadho oo aan wax kalena lagu heshiinin nina ninka ma adka wax xukumi maayo way xukuumadda iyo dowladnimadu way heshiis beeraha Somaliland baa ku heshiiyey beeraha Somaliland baa dowladnimada ku heshiiyey koon ilaa koon xaq bay u leeyihiin waxay ku heshiiyeen in cidda ay u dhiibteen ee loo dhaariyey ay fuliso madaxweynuhu hadduu awoodii hayo oo aynu ku aaminaynu ku dhaarsanay inuu fuliyo weeye waa aabba gurigiisa wax yeelaya dee loo taagin waa aabbii ummadda hadduu markaa isagu uu fuli waayo dee nooma tihid baa marka waqtigiisoo dhamaado nooma tihid baa imanaysa markaa ciidan soo qabqabanaya iyo khasab dowlad khasaba alla inooma keenay dee jiri mayso oo dareyska dowlad loo gashanaya jiri mayso taasina waxaynu doonayno iyo waxaynu ku fakirayno midna maa ilaahayna inoma keeno marka waxaan leeyahay cid walba oo reer Somaliland oo arkaysa ha iska dayso ama inay afka ka qabsato ama indhaha ka qarsato wax khuseeya oo xaq ah ha eegto wax yaali ma waxaan sanduuqa noo dhighayn baa halkaya waxaan maalintii hore lagii la isticmaalin jiray wadadii ka timaada safarkeeta magaalada waxaa soo buuhaan magaalada ka baxaya waa iga gada iyo kaa gadan maayo waa sanduuq ay noo dhig wax ka yaro aynu baryi karnaa ma jirto sanduuqiyo sharci ah oo aynu isku ogeyn oo sharcigeedu qorayo oo waqtigeedii gaadhay inoo dhig wax ka hooseeyood baryi karto garan maayo oo aad weydiisan karto dowladda waa arkaysaa nimanka commissionkii halka kii hore la mariyey commission baa la magacaabay durtaba
waxaa ka muuqataa inuu doonayo lagu murmo xubnaha halkuu ka keenay waanu isleenahay wuu ku tala jira marka la eego tallaabooyinkiisa ila waxay kugu muuqdaba inaad wax ka soo saartaa inuu yidhaahdo waxaan qabanayaa urura doorashadooda innagu kama soo horjeedno ururada diiwaangelinta waa sharci in 10 sannadood la diiwaangeliyo dadka reer Soomaaliya ee damac leh inuu urura furanayna kama soo horjeedno way soo dhaweeyeen inuu baa soo bixi doonta innaguna kuwii ka baqan lahaa ma dhihin waxa weyn u buuyaynaa inaynu waddanka xukuno waxaynu u buuyaynaa doorashada keen taageeradeyna ayaynu ogni dhabta marka kama baqanayno nin intuu xafiis waraaq geystay aan ciidamo la socon oo waraaqdii soo qaatay inuu inaga badiyo dee ka baqan mayno 10 sannadood buu xusbigani jiraa meel walba uu ka dhisay taageerayaal rasmiya buu leeyahay taageerayaal cusub buu leeyahay oo kusoo biiro oo rajo ka qaba inuu wanaag waddankan ugu taliyo taa maaha ishiyo yaa weligaa layna qalda waa aragteen dadka qaar diinta dhowr nooc u tafsiira ee shiicaba jirto diinta inala haysato meel kale eriday qaar sharciga tafsiiraya waa aragteen oo been ka sheegay waxba kama jiraan xeerkii lagu dooran lahaa ururadu ma jiro diiwaangelintii waa la helaya laakiin waa in la sameeyaa xeerka waayo berigii hore waxaa lagu dooran jiray deegaan inuu xildhibaano deegaan kusoo baxo xeerkaana ma bedel wuxuu u baahan yahay baarlamaanka lagu waqti u qaadanaya haddii meedinkeeda leeyahay commission doorasho ayaa loo baahan yahay oo waqtigu qaato doorashada way noogi midaan la garanayn waxay u baahantay commissionku in la garanayo ciddaas tartamaysa ay tayihiin oo ay soo baxaan cidda dabeedna mar tiradooda marka la ogaado waxaa la doonaya in diiwaangelintii la sameeyo in loo qorsheeyo markaa budgetkii iyo kharashkii ku baxayey iyo intuu ku baxayey si loo ogaado si tartanka loo qabto waxaasoo dhan waqti qaabanaya tii sharciga ahayd intaasba diyaarka u ahayd ee miisaaniyadda diyaarka u ahayd ee waqtigii distoriga diyaarka u ahaa ee commissionkii diiwaangelintii diyaarka u ahaa ee caalamka ina caawiya diyaarka u ahaa ee aynu kulligeen heshiis ku ahayn na halkaasuu ku laab waxaan jirin kolba intuu soo tagaawin odhaya ku biya cabba saasaan yeelayaa ku biya cabba xitaa maaha madaxweynenimo ku biya cabba iyo hanjabaad maaha madaxweyneyaashu hadday dadkooda ku sheegayaan oo waxay wadaan u sheegayaan way u sababeeyaan saasay ahayd saasaa dhacday haddaynu ummaddii nahay saasaynu yeelaynaa waa wanaag lagu yidhaahdo ciidama soo urursado ama meelu taageerayaal isagu u gaara soo urursado ayuu yidhahaa kurbiya cabbi saasaa la yeelayaa dee cabbi mayno qooli baa la yidhi qooli shimbir baa uga soo ma qorqabad biyo kuma cabato baa la yidhi kuma cabto ku cabbi mayno wey marka waxaan leeyahay walaalayaal mas-uuliyadda ugu weyn waxa weeye dadka markaan dee dabadaan nimaadno dib weeyaan in waddankii inaanu wax un ka sheegno ma jecel idinkoo qurbaa jooga inaanu idin gelino warwar iyo walaac ma jecelin haddana runta in la iska qariyada ma aha waa in runta la isu sheegay waxaan hadal kusoo gaabinaya wanaag baynu wax ku doonaynaa sharcigaynu wax ku doonaynaa ka dhaqaaqi baynu halkaa waxaynu u baydhbaynayna aynu kolba ergo waa qoraynaa waa wanaag fulinimo maaha baqa maaha baa laga hayay beriga
ninay isku reeriin la liiday oo dowladda meelta dhiisigu ahaa wuxuu yara diiday iyo waa hawshiisi yara diiday wuxuu markii dambe waxaanto wuxuu wareedhe dowladda dhiisi baad u tahay dowladnimo yani baawar baad leedahay qabiilna reer hebel baad tahay xaggan aad u habranaysaa waa maxay waxa weeyaan xisbina dee wadani baynu taageeradiisu qoone ilaa qoone ummadda shacabka rajadiisa weyn waxaynu wuxuu doonaynaa maaha un kursiga waxa maqashaan waa muhiim markaas dad waaweyn ama dadka doonaya inay qaldaan oo odhanaya nin kursi doonaya annaga iyuu dad nin kursi doonaya keligii ma jiro ummad buu hogaaminayaa wanaag dalkeeda la doonaysa kursiga qofka doonaya nin keligii socdoo loo hanjabayaa ma jiro halkaa maanta madaxweynuhu wuxuu u fadhiyaa ummaddeena inuu hogaamiyo inu ku jiro soo waxaynu ka filaynay inuu wanaag inoo qabto inoo shaqeeyo waa sidaa musharax waliba isaga iyo keyruhu waxaa laga doo waa ummad wata ummaddaas doonaysa in waddankan wax loo qabto ay hogaamiso yaana idinku qaldi waxaynu u habranaa ma jiro wax sharci darra aynu ku aqbalaynaana ma jiro laakiin ummaddeena ka goosan mayno oo diidi mayno ergooyinkooda oo diidi mayno wanaag wixii daliin tiraana waynu yeelaynaa oo ka waaban mayno wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu aada iyo aad buu mahadsan yahay cabdullaahi galjire warbixintaa wanaagsan uu siiyey wuuna ku mahadsan yahay iminkana waxaan kusoo wareejinayaa oo kale kelmadiisa ina odhan doona xogayaha arrimaha dibadda ee xisbiga wadani mudane cusmaan saxardiin بسم الله الرحمن الرحيم dhammaan dadkan sharafta leh ee halkan isugu yimi hadday salaadiinta tahay hadday odayaasha tahay haddii ay dhalinyarada tahay iyo ugu dambeyn hablaha quruxda badan reer Seattle hablo meel walba way ka wacan yihiin waqti ragga dhammaantiin waan salaamaya waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu alxamdulilah ilaahay baan mahadnaqayaa marka ugu horeysa isugu keenay xafladan quruxda badan ee bilan ee suurtageliyay inaynu maanta halkan isugu nimaadno waxaan kaloo mahadnaqayaa dhammaan intii xafladdan soo qabanqaabisay hadday guddi tahay iyo hadday taageerayaal tahay dhammaantood la isku soo dubariday xafladdan quruxda badan waxaan mar labaad si gaara ugu mahadnaqayaa hablaha reer Seattle magac miskiin kama aha waxaa jirta walaashay waxay tiri bar baan isdhaafin jiray caddaan iyo ma fahanti horta aniguna waxaan odhan jiray berigaan kulmiye ahaa warniba hablaha Seattle saa usoo xataa waad kulmiye u keentaa ma fahanti horta ya horta ma garanaysaa hadda marka wakaaf iyo kala dheeri ma garata hadda runtii magaciinu magac miskiin kama tihidin magaciin ha jiro waxa weeye ilaahay baa mahadda le inaan maanta muuqiinana aragnay midna aanu soo arki doono laakiin waxaad ogaataan inaad baal dahaba xisbiga wadani kaga jirtaan intaan wadani soo galayna aanan ogeyne hore aanu ogaa oo ciyaari maayo markaan leeyahay waxaa odhan jiray yaa soo xadaa caynka halkana dhowr arrimood waa nagu yar tuurtuuray gaar ahaan aniga
عداني ما أعرف إن حسبك كل يوم كشك شيء وعوي حسبك مدة كشري اسمعنا هذا ما فينا ما نعين هدول ما فينا ما نعين وعمهن رجس بيانه وقرن كود وشقينية ولا ما تنشري أسنم شيء ما كان نقدر نورة أمريكا وقت فاهم وقت تبي الدوري وذلك يدات كم وضع شيء الأسكار إلى لو يعدوا يسولوي ورد خشين سيبوا بدنهم وحصوق هذا النبى فهمت يا خلي يربى نقص ودعك شوي لكن ما فينا ما نحين تضبطن وشرف لي ومقع لي وهيبت لي ورجي الدور بلو حسبي كل مية كتيرة وضيال وصلاتين لي وعقال لي وغير والبلي أيام لسه شقيني كنا فرح سنة هنا لسه شقيني ورتداوي هذا وعلى وحيانا كشيء يعني والله هنا نيجي عيبتو لكن هكا يتابعوا هانو كمان قبل هذا ما يبان هذا ولا يجيب كمان قبل نوش وحان قوي يفكر كان قوي سيدا يتهاي أنا عندك كنت عدين وأنقف بينك أمورين وهي سياسة دماها وحليس أمامها هي وما يرتين يسوع عبد الله يوجي المرمسي وأنا حشون شيء أنا عندك كمان حشون مركز سياسة دتي معنا هو حشونية ترتم معنا قد حية ترتم كاس وحن حق له هنا وريلية وحن حق له هنا ديك تشوف بالله أديك اللي دوك صحنا يا ما فهمت ياس واحد بدو اللي حيرينية هذول يسوي وذي واساسي واحد بدو اللي حيرينية والضرب وغنى شيء أو ذا الشراء والدوري اللي يضل دستان أي الوضع لكن كخريبة هي هذا الفتح هو في غير إذا الله عنده دونها مثل الشعب يركو صوت كشل ماذا رأيتين خاري لا يذكر هربان من هايو لسور وياه كلين أولين ما فهمت هذا هو هركن وريا هركو كود الصوت ما فهمت هذا حسبي بقى حسبي كل مية شيء كلام مش شيء كلام واي حسبي كل مية والله عيان ما فهمت that's why رجعنا نسكو فاهم لنا أولا يا فيك يكون رئيسنا وأنت لما طلعت عشان واحد هذا أنا هو حسبي كل مية أساسي لدورنا ما يبغى هذا ما هو الكلام كوس حسبي كل مية كوعير أو مدحوينه مسبح وهجاننا يقعنت كل كتير حفلة دوري كم وقتي مقعامستي سي كم وقتا ما حقول هذا يسدو دلك يددك ولا دقمية أي كم وقتا مركا واحد نقطة مال لقى عرض أيوه نقطة حسبي كل مية that's why أنا يوسو برعيان يسيع عرقاوي يبين أنت وتقان أنا ورانين حسبي كل مية أنا قد إيه عنو والله وبالله هذا برجرون كذا برجر كل مية وأنا ما هذا محمود يا كل مية شيطان أنت كم رئيسنا يا ريالك because محمود وانا كوهري سيناي وراعي كل مية يا والد هذا ممكن نبي مصبيحي أيوه حسب قاسم ناخذ حسب الغيتي وحشار اللي ما أنتي من الدلو ذا أنا قلت لك المريك إني بدون ما يشوف يعني غير ما صوكر أمريكا إلهي إن بدون ما صنعنا نواتو سياري ما قرأت مرة يراقب كذا مرة الله يراضي حتى تيجي قوسنا يو أمريكا إلهي كباقنا والله بالله ولا وحل السوق يوم فهمت أنا لو وطني هنا أنا ودوتك ورا وده قوليها مرة كاسانة هم جوبته مرة ونسكوري والله مركي بلد برجي ماتو أنا ونوي هوا كرانيا ينو خان جواب كلا ونسنافيني ما قرأت مركي ده إلهي ما هورا وته ورته وحلي نسوي مركي وحلاه رجع يا الله
reer washington seattle yaa gagaarkeeda degan maalin xisbiga wadani idinka baahi badan yahay ma jirto waxaa la doonayaa inaad haddaad boqolkiiba boqol shaqayn jirta inaad maanta ka dhigtaan boqolkiiba 10 boqolkiiba 110 inaad ku dartaan baa la doonaya waayo xaaladii ka adag systemkii ka adag baahiyihii ka adag marka waxaan jeclahay inaan idiin sheego idinla wadaago maanta waxaad u cabanaysaan anugu garan maayo dad wanaagsan baa jooga inta graduationkii ku maqan waa taa uu buuxaa hoolkii inta graduationkii ku maqan iyo meelaha kale wadani inta ku jirta oo qura ma aha iyo ucud oo maanta mataana ah oo dana gaari ka shaqayso waxaan doonaynaa inaad u dhaadhacdaan xusbiga kulmiye kuwa dalkii joogay iyo kuwa halkan joogay dhammaanba dadku waa tabcaan oo wadaalayihiin oo way ka daaleen xisbiga kulmiye inay u bacd haadisaan aad tirahdaan soo raaca guusha iyo maxaan ku dhahdaa wadajirka somaliland sida ku dhaqmi lahayd oo ah xisbiga wadani oo hogaaminaya cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi iyo xirsi xaaji cali xasan iyo maxamed cali maxaan ku dhahdaa inaad saa maxaan ku dhahdaa u bareynaan oo ku bareedhaanoo qof walba aad maxaan ku dhahdaa soo qabataan aad tirahdaan maxaan ku dhahdaa kusoo biir xisbiga aad iyo aad waxaan jeclahay inaan ugu mahadnaqo sudaanka guud ee beeraha guud ee habarwa suldaan xasan subeerawo iyo ragga la socda ee salaadiinta ah ee mujaahidka ibraahim dhegoweyne ka mid yahay ee arka xaqa iyo waxay somalilandnimadu tahay iyo waxay wada noolaashadu tahay ee ka duwan kuwa loo tumaya durbaanka qabyaaladda ee dadkii soo wada dhintay ee la isku xidhxidhi jiray meel lagu wada aasi jiray doonaya maanta inay ka kala dhigaan dad kala reera ah aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa isaga iyo inta uu hogaaminayo qaranka jamhuuriyadda somalilandna rag iyo dumar waxaan leeyahay waa suudaan jira qarannimada jamhuuriyadda somaliland buu ilaalinayaa waa inaad maxaan ku dhahdaa ay ku daba feeshaan oo aad raacdaan waxaa kaloo aan u mahadnaqayaa suldaan maxamuud guuleed iyo suldaan dawal iyo suldaan cabdiraxmaan salaadiintu way badan tahay laakiin raggaa iyaguna dhowr iyo soddonka ah ee ergada ah ayaan iyagana u mahadnaqayaa oo run ahaantii doonayay maxaan ku dhahdaa inay somaliland waxaan doonayaa ummadda jamhuuriyadda somaliland iyo reer siyaaral baynan kala hadlo caawa habeenkanaynu joogno waxaynu ka hadlaynaa waa maxay wax xagee ka timi haddaynu doonayno waxaynu ka hadlayna salaadiintu ka hadlayso ee culummadii ka hadlayso ee dhalinyaradii ka hadlayso ee maxaan ku dhahdaa hablihii ka hadlayaan guda iyo dibadba miyaanay habooneen inaynu dib u milicsano war horta halkaynu ka nimi iyo xaggaynu joogno waa maxay somalilandta xagee ka timi maxaa dhalay somalilandta waa maxay somalilandtuna halkay joogtaa waa maxay halkay ku socotaa weeyaynu ka hadalno somaliland waa wasimo waa dad dulmi diiday oo damcay inay ku noolaadaan cisi iyo sharaf una huray halyeeyadoodii iyo xoolahoodii oo dhiig iyo duunyaba u huray waxa ay somaliland ku salaysan tahay maha wax erka ka yimi waa dhiig rag iyo hablo somaliland oo halgamay oo dulmi diiday maxay ahayd waxay diideen xadhig bay diideen kufsi bay diideen dil bay diideen qafaalashay diideen
dad wadara la isku xidhayo ayay diideen rasaas mool bay diideen oo lagu furayo waxay diideen ma hadli kartid xuyo xuqayde ufo waa maxay xagee ka timi ufo waa in ma dhalinyaro halyeeye ah oo u halgamay somaliland oo dib lagu wada xukumay inta rasaasaa loogu wada furay waa maxay dhagax tuur ma waxaynu nahay dad maanta mudaharaad looga sheekeeyo يعني هدتك ديك يلوجو بعبرة كسب لسومالي لان ما تنبر نمانت لوجو شكله ولا يلاقو مظاهرات من نقال أنا تجيبوت كي ما تا أفريقيا كي ما تنا إيه مظاهرات ويسوي بويه ها إيه مصلا أو واحد عيا مكينان ما أنت وقف الشعور تيزيد ميت كيسوقع الله يرى واحد هذا دوني يعرف كسور مثلا نو هذا الفيلم كهرباء مصاب اللي فات فيلم كهرباء AD intii ka horreysaan soo galnay wixii 91 ka horreeyay baynu soo galnay carruurta aan dhalan ee aan garanayn ha looga sheekeeyo markaa somaliland waxa ay ku dhalatay waa dadkii cisigaa iyo sharaftaa iyo wanaaggaa doonayay ayaa intay isu tageen laas qoray ilaa wabi caddo iyo inta u dhaxaysa ayay yidhaahdeen aanu dal dhisano uu qofku yahay muwaadanku qof sarreeya oo aan loo cagajuglayn oo aan la caburin oo aan la dilin oo aan xorriyaddii qowlka laga qaadin hadda may fahmaysa dadkaasaa dhistay wacan waxaanu ka yeelnaa raggii aanu lahayn waa mujaahidiin oo waa u soo dagaalameen oo dalkan bay u soo dagaalameen ya ayaa wixii ay ka dagaalameen ee ay hubka u qaadeen ee ay u soo galeen duurka u soo galeen ووحي بنكاء فلا وحي لم يدا سميني دوا واحد سورتكلي ويا عروتنا بيشو اقومي ما بتشوقتي انا خبالني كويا بيشو كل شيء يردلا كل بيشو كل تين كويا بيشو كل تين عروه دي ما تشوق ما خاضني يدي وحا بي نفتي صوري اما هو يدي وكوي أما ولادك كوهية أما ذلك كوهية أما ينتدي أما هوريتي تكاقاضا ما يغف إلهي ولا موسى مكاقاضا ولا بكرا مكاقاضا أما بيكو معنا واحد هدول بعول بيكو عبا ما ورد هذا ما بهدي ما بهدي هو واحد سوتي قضوا كانوا دوينا وحوية إلى نفهمه ومدى جمهورية السودان لأنا ماتا meel walba adduunka o dhan naga daawanaysaa inay fahmaan caqligooda la xalin ay fahmaan somalilandtanu halkay ka timi waa simple haddada waxaan nidhi kala xisbiyaanu noqon inagoo kala reera ah markaasaa anu kurmeen noqday oad isdhaafinaysay ma fahantaada adiguna wadani noqotay hadda ceeb maayo ma fahantay waa siyaasad wax alla wax ceeboo ku jiraa ma jiraan sidaasaynu shan madaxweyne ku kala bedelin muuse hadduu doonaya inaan la bedelin dee waa suurtageli mayso taalana meel bay taallaa laakiin taalle intaan la gaadhin oo giddigeedana wada qoran dalku dee shuruuc buu leeyahay shuruuc buu leeyahay ninna gacanta kuma qaadan karo walaah muusaan ku qaadan karin ولا نشقيه مقابل وايو وحي يسوى الجنيه ودان اي حديك لدى خطر كوره marka horta inaynu isla fahanno halkan xageedu joognaa tamam xisbiyadu soo dhisan daaradha dheer baynu dhisan
intaasoo kumaan kuma jaamacadeen nooga soo baxday intaas oo wadooyin oo lahaa siilaan yaro waa maqasheen adduunka waxaa la odhan jiray وانا ما تبغى موسيقى على قهوة كبر الورد ما بعرف وضع على قهوة وضع على قهوة أيوة أنا أصلا ما قرأت وقالت لي أشعلاء على قهوة ما أنا ورجلي تشيكي ميل كذا كسيدي ورجلي مية رأي على قهوة هو عشان نقطة والله مدحويني دورت وسوري ويانا ماموس وليه ده دريك ودي واحد أنا ما قرأت صار واحد قهوة يا وانت ما يا كما يا سوالي يا مش علينا ده ولا حركاونا هنا ده والله تومي ما بعد ده وين انا ما بعد بس كران يا ريم كيسو حقنا والله شيء تتنا ما كران صار او انت ما كران صار هو يا ده واحد madaxweynaha dowladda ku amaanayna wuxuu qabto at least isagoo 5 bilood waa 5 sanadood haddii isii warsagali ka daba tag inaan wada ku amaanayna meel ay hor ya lo waxaan balaaran oo magac iyo haybad leh oo sharaf leh oo saldaarid guur leh warde hadda ilo waa Soomaaliland ma ka hadlaynaa Soomaaliland laakiin saldaarid waxa weeye تاني ولو عليه شنو بهذا يهو بيقول لي صحابنا بارد ولا ورد أنا هذا معلم بلغيس يا ورد بقرا صح بربر وايد ما هذا ولا هذا جنرال ولا هذا روح بعد سوي ما قرأت لكن هدوم مدعوينو عرقابي ورسجلي شركودي مذاهي وكلا غيب قليا إلهي وحنا وبرينا وشركة سبتنا ما تخوى وكذا oo iyagana isfahansiiyay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ku soo soo de Muuse aanu yar sheegno de war waxa beesha dhexe kula dhaqmisid waarta hawlati dawliya Soomaaliya marka waxa weeye dambe way ugu hirdigina raabtiga iyo garanaysa iyo xagga galbeedka Samaroonka iyo garanaysa warsageliga waxa aanu iskoo meeraysanayno تيجي هولتي ما أنا هيدا وقت ما تبغى عليه ما هذا عندنا قبطه لكن وسيرنا ما نبي بيت يا والله ما قرأت مركب وحياه بالسمي سؤال لا أنت نشوفنا ما أنت بدورنا ما أنت تعرفنا ما حد نسوينا شروع ولا نسوينا ما كلنا نسوينا بجد وصدوق عبد الله شيء ورينا ركاي رودجو نكيه هوا أنا بدوعين والله سؤال لا ما أنت جرتها كلمة ما ينسى ما قرر يسوي كوريانا يسار كلمة كاسو ما ركاس وأمرك متحرك وادمه نيكا معوز الستان الباحة يدليا معوز بالستان هذا ما غلط هذا معوز بالستان هو يعايا إنه كل فرد هذا ما غلط عد كمية معاه هم كلها معناه كل شيء وحنا تصير وسؤال نادي الجماواتها والنكاسو سومالي لا ميل كستا جوجتو انت زياده جوجتا عاوالك مويه ميل الا ميل ادوك جوجتو والنكاس واحد كل حياتي وقف سومالي لا درست او مواطنه او حسبيهنا نين معوسته ayaa suu doonan inuu dhibaaxayeen soco intii hooyadii
Somaliland taynu arkaynaa qayb waa tahay intii Muuse joogay waxa dalka ka socda la sheegay aad aragto يعني argagixisada ku dhacay waa argagixiso wax kale maaha qof jidka ka maraya oo guri soo hormaray oo la qaatay oo la jirdilay deedna booliiskii la geeyey wax kale maaha ka saddexaad ya qodobka saddexaad waxa weeye waxaad arkaysay hooyo iyadoo jiifta corneyl labisan dreskii booliiska beerka ka laaday ma qofaan arag baa jira hadda ma garata waxa weeye qof alla qof arka ama dareema ama indhihiisu ay qabtaan minantaa korneelku siduu u laadayo jiridhaca jirkiisa kusoo qof damiir leh jiridhaca kusoo joogsanaysa su-aashu markaa waxa weeye reer siyaadhalo ba ninka Somaliland oo dhan oo wax alla wixii kamarooyin joogay iyo wax alla wixii telefoon jiray iyo wax alla wixii umad joogtay meesha publica ee khayraadii Somaliland gabadh saa ku leh bal waxaad ka fikirtaan wuxuu markaa aan cid joogin uu samaynayo bal ka fikire berigii hore waxaa jiri jiray gaani magaciisa kale waa maqli jirtay mataqaanaa wuxuu ahaa deeriye moorkana waxaa la odhan jiray warmuugi waxaa jiri jiray tuke corneel tuke oo la odhan jiray god ku tuur dadka god gelin jiray gabili iyo eryada ilaa Maraykan meel walba laga maxaa qaraada laga yeedin ilaa Canada waxaa jiri jiray kabtan xidhe Somaliland ma qarigin oo weydii waa garanaysaa ma garto si fiican baa u garanaysaa Soomaa waxaa jiri jiray ina James halkaas waynu wada garanaynaa soo maa waxaynu kaloo garanaynaa taariikhdooda iyo halkay ku dambeeyeen soo maa kuwii aynu inagu darayska u dhiibanay markaynu halaag iyo dhibaato oo dhan ka soo baxnay maanta ninka booliiskeena ninka madaxda ka generaal dabagale waxaa la hayaa isagoo microfonka ku hadlayoo leh cagta mariya dadka cagta mariya wallaahi bilaahi tallahi waa generaalkii booliiska Somaliland isagoo ku hadlaya radiogii oo ciidamadii la hadlayoo leh cid alle ciddaad aragtaan cagta mariya ninkaan waxaa la yidhaahdaa khadarlaangare waxaan maqli jiray balaayo ama ya waxa weeye waa ku-xigeenka ciidamada RRU-da ee loogu talagalay inay argagixisada dalka ka difaacdo hadda soo garanaysaa iska batin waxa weeye si kale hadda waxaa la yidhi waxaan muu sameeyeen de waayo daxiniyaa xaguu ka keen waxaa ku samayn karay siduu u samayn karaa uu u bareeri karaa ummadda oo dhan waxay arkayso oo gabadh hooyaa uu beerka uga laabi karaa isagoo ummaddii oo dhan ma arkayso waa wixii la odhan jiray mudda gardarad kala og wey muusey isxigaan cusur afka lagama dhowro ha
waxaan u sheegaynaa madaxweyne muuse biixi cabdi iyo wax alla wax mada waa raaligelin maaha waa dareeska laga dhigaa maxkamadda soo taaga waa dambiilo qaran wey ha dambiilo qaran wey waxa weeye dareeskii uu ku ilaalin lahaa ummadda jamhuuriyadda somaliland inuu hortooda ku tunto waa xaaraan wey qarankuu ceebeynayaa dareeskuu ceebeynayaa wax kasta oo somalilandnimada macna ka samaynayu ceebeynaya marka waa in dareeska laga dhigo maxkamad la soo taago laga saaro maxaan ku rahday dareeska oo aan ummadda u shaqayn karin waxaa kale oo jira oo commona iminka oo jira dhalinyaro la qafaalanayo guryo lagu jibdilayo oo wareeyaala oo aan mid ahayn oo laba ahayn oo saddex ahayn oon afar ahayn oo laba gargaranayo 20 inan 30 inan oo bistoolada wata oo dharcada oo waxay doonaan samaynayaan waxaan ku noolahay Soomaaliland ku noolaataa maanta waa ogtii sicir bararka jira waa ogtii dhulkii gubtay waa ogtii nabaaraha jira war waxaynu ku nooloonaa aynu weligeed yaaleen inan iyo inankiisa aynu isu sheegin wax weeye nabadgelyada ayaynu ku nooloonaa haddii tii la isugu yimaado oo gurigaaga lagala soo baxo sidii dowladii maxamed siyaad barre ama jidka lagaa qalfaasho waxaan karan maayo waxay noqonayso laakiin waxaan ogahay waxay noqonayso waxaan shaki kaga jirin inaanu dambe ku jiri jirin kuna socon karin system caynkaasa oo cadaalad daro iyo cunfi iyo caburin ay ka jirto ummadda ma qaadi karto waxaas oo xaaraan billah wallahi inaan qaadi karin billah marka madaxweynaha saaxiibka ahay waxaan leeyahay waxaan garan maayo wax ku helay ma fahanti war taariikhdaana dib u eeg taariikhda Somaliland halkay soo martayna eeg waayo halkaynu u soconaa oo quri waxa weeye waa khatar Somaliland wax weeye waxaan jeclahay waan doonayaa inaan laba arrimood ku daro beesha caalamka iyo dowladaha adduunka oo dhan iyo Somaliland waxaan u sheegaynaa inaanu diyaar u nahay wax alla wixii nabadgeliyo iyo wada hadal ah oo aanu aqbalnay ergadii دور يصدم كهاي صلاة شيء أيه كامل وحن كل باش عالم كل شيء لنا وحن وضع حضرة وأنا عندنا اللي لنا إلى نشرين إلى سدادية طبقة وقف السركالة وزيرتي كوتشنان عبد الله محمد ظاهر عكوسي يقدميها حمرتي يا هكا كلا إلى جدي يوم السود إلى أن نحقق هذا واحد وضع حضرة أنا الله فوري waxaan doonayaa kaga baxo reersiyaada Somaliland halkay maraysa waa halka qayb baad ka tihiin inta badbaadinaysa Somaliland badbaadada Somaliland maanta maaha xisbiya ururo la macnaalayo bila sharciya doorashada madaxtooyada waxaa geli kara saddexda xisbi ee aanay dhicin maxaan ku dhahday laysa kudiisi miyanu ka aqbalaa musabbixi adigana waa quraan ku soo dhigaya laysa ba wastana ba ugu bagaasna ka horreeyay siyada booliisku diraan laysa ka ugu dhacay marka adiga waqtigiisa ma dhicin miyaad yeelaysaa tigid baa ku siinaya ama waa ka dhigaya gaadhiga miyaad aqbalaysaa maxkamadaha la isla tegaya waxaan suurtageli adigana waa ku soo dhigaya aniguna kordhis baan helaya ma yabshi waxaan socon give no tani hello sheeko kale madaxweyne kan waxaan kaga baxaya wanaag weyn
waxaynu doonaynaa wixii somaliland loo asaasay inay hirgasho waxaynu doonaynaa waxaynu ka dagaalanay inaanay ka dhicin somaliland waxaynaan qaadanayno wixii aan ka dagaalamay oo aan ka soo dagaalamay ayaan adiga kugu samaynaya ma qof baa qaadan karaa waa waxaa caqliga iyo maskaxda bini aadamku aan qaadan karaa waxaan kaga baxaya xisbiga wadani xisbi ka ballaadhin ma jiro laakiin mid kasta oo halkiina farxadda fadhiya rag iyo dumar nin weyn iyo dhalinyaro iyo inta idinka maqan iyo intaad usoo jiidaysaan xisbigu wuxuu tamiranayaa u soconayaa intaad isla barbartaagtaan oo horta taagaan haddaynu kursiga ku fadhiisanaynu nahno maxaa loo mudaharaadi waayo ma fahamti taladana waan idiin sheegaya talada dad baynu u dhiibay madax baynu leenahay hadday madaxa dhaqameed tahay waddankii bay joogaan hadduu musharaxi yahay waddankii buu joogaa guddoomiyihii iyo madaxdii oo dhan waddankii bay joogaan war talada markay tale inoogu hubiyaan yaan suuqa laynoo soo gelin inuu nabi dacaale inaan isku furin ma kala deeqaan qaar baa waa goranaya maxaa se loo yeeli waayo war 2 kun oo hawlood bay inaan ogeyn oo socda dowladaha adduunka o dhan baa soo hadlaya 50 nin suldaan baa imanaya culimo isugu jira miyaynu diidnaa diidi baynu kaadi badana waa loo gogol badiyaa waynu u gogol badinayna waxa loogu xusamayna ragga irkada diidaya cabdiraxmaan noqon maayo xirsina noqon maayo ragga kale joogaa somaliland noqon maayo madax dhaqameedkuna noqon maaya marka waxaan kaga baxayaa من فضلكم waxaan idinkaga baxaya ceelna uma qudnaan cidina uma maqan wasalaamu calaykum waraxmatullahi